injineer maxamuud caydiid oo ka mid ah taliyada Soomaalida ee ku dhaqan dalka Britain ama mas'uuliyiintii lagu soo casumay ansixinta dastuurka Puntland ayaa maalnimadii maanta soo gaaray deegaanada Dalyare kana mid ah gobolka Sool ahna deegaano qadiimi ah isla markaasina kulamo kala duwan kula yeeshay odayada iyo waxgaradka deegaanka waxaana ay ka wada hadleen sidii loo xakameyn lahaa hubka xad-dhaafka ah ee soo gala deegaanka iyo waliba sidii looga hortagi lahaa caruurta la askareynayo iyo sidii kor loogu qaadi lahaa tayada waxbarasho ee deegaanka si loo helo inay ku soo dhiiradaan hay'adaha caalamiga ah ee loo baahan yahay inay buuxiyaan baahiyaha dadka deegaankani isagoo gabagabadiina u gudbay beeraha deegaankaasi ku yaala oo iyagu ah beero aad u badan dadka Soomaalidana kaga jira kaalin muhiim ah lafdhabarna u ah dadka deegaankani isagoo halkaasi warbixino kooban kaga dhageystay gudida beeraha Dalyare oo ka waramaya baahiyaha asaasiga ah ee ka jira deegaanka waxaana ka hadlay Hiirtuulaha Dalyare Maxamuud Asro waxaana hadaladiisii kamid ahaa meeshana timid waa Dalyare waa gurigaagii waa meeshaad ku dhalatay baahiyaha ka jira waxaan u maleynayaa dawad aragta haddii anigu aan ku yar gudbaro odayaashii horeba way u sheegeen runtii baahida ka jirta meeshan mid soo koobi karo maaha waxay meesha yaalaan dadku waa beeraley iyo xoolo dhaqato bal isugu jira gaar ahaan haddaan beeraha ka sii yar hadlo beeruhu waxay ku yaalaan waa meel duxa xilliga hadda aynu ku jirana waa xilli roobeed waxaa dir aad uga cabsi qabnaa dalaga ka muuqda darto ishinu hayso waxaan aad cabsi uga qabnaa waxaanu naano tolo goorma biyo qaadanaya ceelasha ka qodan beeraha dhexdeeda waxaa laga baqaa inuu dimaan wayna dimaan sanad kasta wuu dimanay kuwa hor la qoda qalabka beeraha motorada aad bay ugu yiri beeruhu saddex beerood ama afar beerood hal motor ba ka dhaxeeya beebabka biyo waa sidoo kale sidarku way lagu nacay aad bay noogu liitaan waxaanu aad u jecelahay aqoonta beeruhu haba yaraatay wax tababaro dadkan u galay ma jiraan dadku iska dad reebaadiya سيرسك وحنا كهلا جوحنا ملها دبلا لكن كانوا ملكي بدنا نقول نقول أنت كذب إنجنير محمود يا هالكاسي تلوي وحكوا الله أسوي كذي دتك الدجاج كاسي شجعنا إنه قعن كسينا يصير أيوه للهيان وعيبا أيوبا هيهين أضيء تاي دلق سيد تبركوا أدم أقنت بيرها يوحك صاي أوج ويشان وحكله ويتعسي وقدر مسؤولك إن هذا يكبر كران يقدر دوران مشروع لهذا فول فوار أو راشين كاستعمال ينكوب بدلن دوران حق جودا يجوا عن وحر الشيء كجبهن وحنا هذا الذي يصير كم ذا بصشوا عن المود كريم بقى إني عرس نوال عيد عاد إني كبح عن المود كريم عن سورين كريم مالها السنة جيو بايدبا يبغى أوجس أو كيس مالها كبح ذو ونروح تاجنا هاي مانتا عاديات بنقول فرح سنة هاي وحنا كل رجلين يا إن بوقشة الله بديو إذا أم كبير لي دني وحصل صار أنت كفي عن وجود بالهاي تبرد هذا عن الهيد عقب كبيرة هذا عن الهيد إن تبرد هذا عن الهيد إن لقى عاوي وبيش عالم كهيدها نكتخل بيرها كشغلة له يوم هاي معمولات بقى كعاويان قرب شوك تيجي كله أكسس أولى أما بوحن وحكتر كرا يجلفت إنه كعاويان ليش من الدجان رسمي وأنت وحساسار كده إنه كفي عني هاي وحبرشة يعتمد كدتك كنا ليجنا لطيعي ولهجاتي وحلاقة قبته أدبر وقف رحسنا هاي وغشة عن ويمد بيرليدا مانتا بحال وشيء قرتها أنت بيرليدا كل احترتي بيرو هذا من ميت كذوب بقولي ظروفها كحيد ضامن بيرها يودك بيرليدا هاي هذا كشيء قرتها سيدي أي نوع ورمين دتك بيرليدا وأنت عن ورئيسك عن كل شغلنا أو بغشة ونمي مركورة وحنوب مذهب علينا يا سود وأنت قيمها ولا هيد يعني نوع فسحين بيرو دي حلقة جاي شقيسنا يعني نحمرنا عرقنا أو مارتا عن أكور قلو waxyaabaha inoo sheegeen waxa kamid ah inaanay helin qalab joogta oo ay beeraha ku fashaan waxay noo sheegeen inaanay helin daaweyntii ay u baahnaayeen ciidda iyo dalaguba u baahnaa tababar sida abuurka oo kale aqoon dheeraad oo tababarka beeraha wax soo saarkooda kordhintooda iyo tayeyntooda inaanay helin marka suuqgeyntooda laftigeeda inay ka helaan inay helaan xayeysiin iyo publicity inay helaan dhinaca transportiga wadooyinka iyo wax lamid ah iyo ceelasha biyaha ay ka waraabsadaan iyo matooradii ay ku waraabin lahaayeen beerahan waxyaabahaas oo dhan baahiyaha kamid ah wax nooga sheegeen iyo tababarada
aqoontooda laftigooda iyo kuwa caruurtooda iyo caafimaadka intaba in kor loo qaado wax laga taro waxyaabahaas ka mid ah waxyaabaha ay noo sheegeen maxamuud Saleebaan Somali Sat TV magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.